gabar Faransiis ah ayaa waxay qaadatay diinta Islaamka waxayna ku noolay dalka Algeria. Waalidkeeda dhammaantood ma aysan ahayn dad muslimiin ah. Kadib gabadhan ayaa si daran u xanuunsatay waxaana laga helay cudurka kansarka ah. Kadibna waxay u tagtay dhakhtarkii la socday xaalkeeda wuxuuna u sheegay in cudurku uu ku faafayo jirkeeda oo dhan rajana aysan ka qabin inay soo kabato. sidoo kale wuxuu u sheegay in waqti yar ay uga harsan tahay nolosha oo idil oo ayna dhiman doonto. wuxuuna gacanta ka saaray warbixintiisii iyo sawiradii raajada iyo kuwa kaleba. waxaa ogaaday gabadhii reerkooda waxayna ku yiraahdeen tani waa carada Ilaahay ee kugu dhacaysa maxaa yeelay waxaad ka tagtay diintaadii waxaadna qaadatay diinta Islaamka. maysan dhageysteen hadalkooda waxayna ku dhignaatay diinteeda Islaamka. intaa kadib waxay waalidkeed u soo bandhigeen in ay timaado dalka Faransiiska si halkaasi xaaladeeda loogu dabiibo. waxay u safartay dalka Faransiiska iyadoo waalidiinteedu ay si fiican u ogaayeen inaysan rajo ka qaban ka bogsashada xanuunka gabadhooda xaleelay. laakiin ujeedkoodu wuxuu ahaa inay cashar u noqoto kuwa damacsan inay galaan diinta Islaamka. markii ay imaatay kadib waxay geeyeen kaniisadda dadka ay u sheegeen inay tani tahay iqaabta sababta ay u qaadatay diinta Islaamka. gabadhii aad ayay u ooyday kadib markay ogaatay ujeedka reerkooda. kadib waxay ku laabatay dalka Algeria iyadoo sugaysa inay ku dhimato diinta Islaamka. dhakhtarkii ayaa u sheegay in 24 saac gudaheed ay dhiman doonto. sidoo kale ayadana dhimashada kamaysan walwalin waxay walwal ka qabtay inay dadkeeda iyo ehelkeeda ay dhahaan waxay u dhimatay iqaabta diinta Islaamka ay qaadatay darteed. waxayna bilowday in habeenkii saqdhaha ay dukato waxayna salaadii dhexdeeda ayay Ilaahay ku bariday iyadoo leh Ilaahow kama baqayo inaan dhinto oo aan kula kulmo laakiin waxaan ka baqayaa inaan dhinto oo qoyskaygu way farxi doonaan maxaa yeelay waxay u maleynayaan inaan u dhintay Islaamka aan islaamay dartiis dadkuna way ka baqi doonaan diinta Islaamka inay soo galaan. waxaan rajaynayaa Ilaahay inaad i bogsiiso siday dadku u ogaadaan awooddaada iyo naxariistaada. markaas kadib dadku waxay soo galayaan diinta Islaamka. kadib waxay gashay koomo waxayna soo toostay galabnimadii maalinta ku xigtay. ma aysan dareemin wax xanuun ah laakiin markii habeenkii yimid oo saacadii loo sheegay ay timaaday ma aysan dhiman. sidoo kale ilaa subaxdii ayay soo jeeday sidoo kale ma aysan dhiman. way yaabtay. subaxdiina waxay u tagtay dhakhtarkii la socday caafimaadkeeda. kadib markii dhakhtar ku orday dhammaan baaritaanadii iyadoo la weydiiyey cidda ay tahay waxayna tusisay feelkii hore loo siiyey. dhakhtarkii ayaa u sheegay ay wadato uu ku qoran yahay kansar laakiin ayaduna aysan qabin wax kansar ah. markaasay kacday iyadoo Ilaahay dartiis u sujuudaysa. u fiirso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo uu aqbalo baryada adoomihiisa.